السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعانا وناكسن دمان مداوديال meel kasta oo ka joogtaan daafaha dunida kuna soo dhawaada barnaamijkeena bilicda burco iyo baadi goobka horumarka. Barnaamijkan waa barnaamij aanu daawadayaal idin ka soo diyaarinay bilicda burco iyo baadi goobka horumarka ee ka socda ayaa waxa uu noqonayaa barnaamij aanu idinku iftiimin doono ama baan idinku soo bandhigi doono bilicda iyo horumarka baaxadda leh ee ka socda magaalada Burco. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waa caasimad ku xigeenka koobaad ee Soomaaliland waana magaalada lagaga dhawaaqay go'aansitaanka Soomaaliland sanadka 1991 magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay xukuntaa degmooyin iyo tuulooyin tiro badan waana magaalo baaxad ballaaran leh. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay nasiib u yeelatay inay yeelato sayladda xoolaha ee ugu weyn geeyiga Soomaaliland. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waa magaalo madaxda labaad ee Soomaaliland waa magaalo marka la eego ay ka muuqato qadiyadda iyo isku duubnaanta Soomaaliland. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa 5 sanadood ee ugu dambeysay waxa maalinta ka soo dambaysa iska soo tarayay bilicda iyo horumarka baaxadda leh ee ka socda. Sanadkii 1991 markii lagaga dhawaaqay go'aansitaanka Soomaaliland waxay magaalada Burco ahayd magaalo gabi ahaanteed baabur oo ay saameyn baaxad leh ku yeesheen dagaaladii lala galay Maxamed Siyaad Barre. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa intii aan ku jirnay barnaamijka bilicda iyo baadi goobka waxaanu ku arkaynaa ama indhaha ku qabanayeen dhismayaal aad u dhaadheer iyo horumar baaxad leh oo ka socda magaalada Burco. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay leedahay golo deegaan oo ka kooban 22 xildhibaan waxaana la doortay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco ee imika xilka haya bishii 12 2012 waxaanay xilkaasi hayeen muddo gaaraysa 3 sanadood. Golahan deegaanka ee magaalada Burco ayaa waxa u suurta gashay intii ay hayeen xilkaasi inay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ay ka hirgeliyaan dhismayaal wado oo laamiya. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maalinta ka dambaysa waxa ku soo kordhaya ganacsatada iskood isu xilqaamay ee ka qayb qaadanaya horumarka iyo bilicda magaalada Burco. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxaad arkaysaa dhismayaal aad u qurxoon oo soo jiidasho mudan isla markaasna ka jira magaalada Burco. Magaaladan waxa ay leedahay laamiyo dhinacyo kala duwan uga baxo oo ay hirgelisay dawladda hoose iyo waliba laami baaxad ballaaran leh oo ay hirgelisay dawladdii Siyaad Barre. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay leedahay saylad xoolood oo lagu kala iibsado xoolaha nool waana magaalo ku caana isku xidhnaan isku duubnaan iyo waliba walaaltinimo. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer marka loo eego magaalooyinka kale ee Soomaaliland waa magaalo ay ka muuqato deganaan isku duubnaan iyo waliba magaaladan waxay u dhisan tahay qaab dhul isku siman. Intii aan ku jirnay daawadayaal haddaba barnaamijkan bilicda Burco iyo baadi goobka ayaa waxa la kulanay mulkiilayaal iskood isu xilqaamay oo dhismayaal iyo goobo ganacsi ka hirgeliyay magaalada Burco sida Dr. Eid Maxamed Cali oo ka hirgeliyay magaalada Burco isbitaalka caalamiga ee Carafaad isbitaal iyo waliba Canab oo ah mulkiilaha hotel dal wanaajiye magaalada Burco. Sidoo kale waxaan iyaguna halkaasi ka maqnayn oo aanu la kulanay intii aan ku guda jirnay barnaamijkan bilicda Burco iyo baadi goobka horumarka. Xamso ah maamulaha Shell 707 oo ganacsiyo kala duwan oo ka jira magaalada Burco iyo waliba Xirsi isaguna ganacsatada ka dhex muuqata magaalada Burco. haddaba daawadayaal bal aynu eegno khudbadahoodii iyo waxa ay kaga jawaabeen bilicda Burco iyo waxyaabaha ay ku soo kordhiyeen. runtii isbitaalkan Carafaad waa isbitaal dhawaan la furay oo magaalada Burco laga furay waa isbitaal private ah oo runtii adeeg fara badan ku soo kordhiyay adeegga caafimaadka ee gobolka. waxaan runtii aan ku fulinaa waxaan leenahay adeegga inpatient-ka oo bukaan jiifka la dhigo isbitaalka iyo bukaan socodka laftigiisaba. marka hawsheedu badanaa waxay u badan tahay oo focuska aanu saarnaa xagga maternity-ga waayo adeeggaas oo aan aragnay inuu aad uga liito gobol ahaan oo ah adeeg aad iyo aad loogu baahan yahay xagga hooyada dhalaysa iyo dhalmada iyo xanuunadan dumarka. runtiina waxaan dee midwife fara badan baa ka shaqeeya isbitaalka oo shiftiya ka gala operationada iyo dhalmada caadiga ah iyo dhalmada u baahan caawinta ama assistant delivery-ga intaba waan ku sameynaa. waxa kaloo aan ku sameynaa waxyaabaha kale adeegga caafimaadka bukaan socodku ay ka cabanayaan oo dhan. isbitaalku wuxuu leeyahay shaybaadh aad u qalabeysan oo runtii qalab ay naga caawisay SBF ama Somaliland Business Fund oo runtii aad aan ugu mahadnaqayo sida ay uga qayb qaadatay in isbitaalkan uu heerka gaaro oo dhammaan qalabka shaybaadhka ee isbitaalka yaala iyo adeegyada kale iyo waxyaabaha kale aan ku fuliyo adeegyadan ba ay yihiin maalgelintii ay bixisay SBF
فيسكي هوري فيسكي دنبابا دي هرتا بلعد مقالدنا واحد مودين وقيب كقاطيو دي مقالد وقيب تاني قوري نوحوها قوري هرتي زي دقينيهين قاضيال iyo اللهم صل على محمد ده waxyaabo fara badan oo ishu ay ka soo boodayso runtii imikana de biladii magaalada Burco ama isku yaala guriga ayaa biladii magaaladana dad qayb weyn ka qaatay oo kulli dadkaana dadweynaha ka marag furaya oo arkaya oo sidoo demokraanka dawladda tareeyay saaka waxa ku jira waxa tolay hormone profile-kii lagu baaray waxa tolay hormoonka lagu baarayay hadii tahay TSH hadii tahay T4 hadii tahay T3 ga dhammaan oo baarna dhammaan taska waxa naga dhimanay agabaadka Arafat polyclinic ma jiro qalkan waa qalkii delivery qalabkiisa lagu dhanyahay waxyaalaha suujinkii waxa taala delivery barking sectionkii hadii uu waxa cunno kale laga soo saaray waxyaalaha kale dawooyinkiisa emergency xaalada emergency timaado qalabkiisa uu dhanyahay hudaalka dal wanaaje waxaan furnay February this year si fiican buu shaqaynayaa qaybo badan buu leeyahay wuxuu leeyahay 20 qol oo hurdooyina wuxuu leeyahay upstairs buu leeyahay hoolal buu leeyahay 3 hool shirarka iyo seminaarada iyo aroosyada iyo meherada lagu qaban karo oo aad grade-koodu u sareeyo nadiif ah meel aad ku raaxaysan kartid oo naftaada aad u qulin kartid ah waxaan leenahay saduuxa sare oo habeenkii lagu casheeyo oo madbax baan leenahay korka ah oo hablo Soomaaliyeed ka shaqeeyaan oo aad iyo aad u clean ah cuntadu aad iyo aad ay tahay healthy food oo aan ilahayn wax maxay hayday wax organic cunto organic lagu sameeyaa saliidu waa very clean saliida cusub cuntada lagu sameeyaa waa meel aad iyo aad caafimaadkeeda loo ilaaliyo maxay hayday xagga hoose hadaan soo daadigo waxaan leenahay maxay hayday cafeteria xagga hoose ku leenahay waxa la sameeyaa coffee heer saraasha aad iyo aad fiican dadka cabay way ogyihiin waxyaalo kalena waa lagu soo kordhinaynaa hadii Ilaahay yiraaho si dhaqso ah shaqaaluhu waa shaqaale aad iyo aad u fircoon oo aad iyo aad u active oo yaqaan shaqadooda magaalada hudaalkan aad iyo aad buu qurxiyay ereyadan hudaalkan aad waa hudaalka kaliya aad ku ma kartid oo aad lagu soo dhaweynayo oo nadiif ah aan idinka siiyo qaabka ay u bilaabatay ganacsiga Shell 707 fuel station supermarket iyo car wash waxaan aasaasnay shirkadda Shell 707 sanadku markuu ahaa 1992 bilihii koowaad ayaan aasaasnay kulley waa iska jireen duruufo magaalada Burco ayaan ku aasaasnay way iska jireen duruufo badan oo de saamixi waayay inuu ilaa waqtigaas uu sidii loogu talagalay u socdo oo kulley duruufo de magaalada ka dhacay way iska jireen ama dagaal ha ahaato ama magaranaysa waxyaabo kale ha ahaato mar labaadkii waxaan dib u istaarnay 1987kii waqtiga wixii ka bilaamayay ilaa iyo hadda dadka waxaan u qabanaa adeegyo ay ka mid yihiin inaan siino shidaal tayadiisu ay fiican tahay oo haday petrol tahay haday naafta tahay haday gas tahay iyo haday saliidaha kala duwanba ay tahay mar walbana waxaan ugu dadaalaa customer-kayaga in aan u keeno ama u soo provide gareyno shidaal tayadiisu ay wanaagsan tahay oo gaadiidka u wanaagsan waana wax looga bartay Shell 707 adeega wanaagsan waxaana marxaati kaaga ah gaadiidleyda oo aad ka wareysan kartaa iyo waliba qiimo macquul ah oo yaani dadka raali galiya inaan wax ka siino secondly mar labaadka waxaan soo kordhinay car wash iyo dukaamaysi meel laga dukaameysado oo ay dadku wax ka iibsadaan iyagana waan ku soo kordhinay insha Allah biidnillaahi kariim de waxaan jecel lahay marba marka ka sii dambaysa in yaani wax dadku jecelaystaan aan soo kordhino hadii Allah awoodale uu ogolaado annaga oo yaani
dee ka qayb qaadana wixii cusub ee dee magaalada lagu soo kordhiyay ay yihiin wax dadka u soo wada kordhay hadday dhismo tahay hadday adeeg wanaagsan ay tahay insha allahu mar kasta waxaan customerkayaga u ballan qaadaynaa in aan yacni u keenno yacni wax raali geliya hadday shidaal ka noqoto hadday alaabta tukaamaysiga laga tukaamaysanaya noqoto hadday qaybta car washka ee gawadhida iyo in lagu maydho ay tahay mar kasta anagu waxaan ku dadaalaynaa inaan customerka u keenno wax qiimahooda macquul yihiin kuwa bilicda magaaladana ka qayb qaata oo marba marka sii dambaysa constructionka aanu ka dhigno construction casri ah oo la socda dhismayaasha ma garanaysaa dee qurxinaya magaalada qurxinteeda aadka uga qayb qaadanaya waad ujeedaa hadda dhismahan aan ka hadlayno dhowaan baan samaynay insha allah bidillaahi kariim waxaanan jecelahay inaan mustaqbalka xagga sare aan wax sii saaro 2-3 kala sii saaro dee waan wadaynaa wixii ilaahay subxaana watacaala uu nala qabto waa eegaynaa dee kolley haddaan soo koobo warbixintii koobnayd ee ku taxalluqday يعني waxyaabaha ay soo kordhisay shirkadda Shell 707 intaas ayaan ku soo koobayaa waxaan halkan aan ku bahalaynaa meherada maamul supermarket inkastoo aan ku soo kordhinay magaalada qaybtan oo ah qaybtii labaad sida supermarketka qalabka elektrooniga waxyaalaha dadku ay u baahan yihiin taasoo aan ku dhiirayno inaan ka sii ballaarino sida haddii ay biiraahdo waxyaalaha kale loo qorshaysan aan u baahanahay inaan ku sameeyno isbedelka sida qalabka talaagadihii TVyadii in wixii oo saas ku wada raacsan waxaan rajaynaa insha Allah in aan keeno qalabka iyo waxyaalo kale oo farabadan oo dadku dhiirigelinaya anagoo u dalayna customerkayga si aan u sameeyno muuqaalo farabadan iyo soo jeedasho farabadan oo aan customerkayga aan ugu ku soo dhaweeyno magaalada wixii quruxa inaan halkan ku soo kordhinay qaybtan labaad si ay u noqoto baris magaalo halkan oo aan ahayn meherad kale noocayago kala sida meherada kale nagu daydaan oo ay ka dhigaan sida bartamo kale halka ay meherada hore ay yihiin cosmetic waa meel buluula oo meel aan la soo geli karin maalin habeen laakiin si halkan waa wado furan oo ah daawadayaal waxaanu intaa diiradda ku saaraynaa ama baan idinku soo bandhigaynay bilicda Burco iyo baadigoobka horumarka ee ka socda barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Cali Axmed Maxamed Kaaba waxaa dhanka kamarada igala qayb qaadanaya Yaasin Dhagacade waxaanu idinkaga tageynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh